السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإذن سلامي إلهي وحان إذن كغرجانيا عمر دير عبادة دن يعافماد لميسترن إن وحان ربائنا إذن له رمضان كريم. الحمد لله إلهي رمضان إلهنا وذوافجيو إلهي نما أركتي إن رمضان كان رمضان كيسا برواقي بش إلهي هنوغو غارسيو إن انتي دمتين إلهي أو نحرستو إن انتي حنوصنا إلهي عافيو إن إلهي كوي سي وناكسن أو غفا إليستا حالنا قدقو رمضان كان إن شاء الله وحان سآدي وغحم هاي إن ولغي انتا نولا رمضان تراويح لآن ما انتكنين هذا نسيد الرجين وحيو اكتها إن مساجدة إن كستو حرينهين أو بضانتهاي إن لآدي وايو إن تراويح وقروه لغو تكون دونو سببها آوي أو آوود aan la socono coronavirus marka maanta laba siyaabood usoo galay mid oo ku saabsan coronavirus-ka iyo maxay ahayd iyo mid oo ramadaanka marka mid koowaad labadoodan way isku xiran yihiin marka waa isku dhaxwada insha Allah sida ognahay baanaka dad Soomaaliyan ahay dad muslimiin ahay dad ma aragtay aad isku jecel oo isku tagtagaanahay dad wax wada wadaago wax wada cunaanahay marka siyaabaha ugu fudud anaga ma aragtay hadii aan isku il doorin oo isku fiirinin dhibaato dhibaato dheeraad nooga imaan karto siyaabaha ma aragtay noogu fududaan karto iyo wixii la mid ah oo kale maadaama ogtihiin bahalkan waxa lagu kala qaadaa taabashada iyo isku taga badan iyo waxaas marka anaga isku taga badan marka maxaa keeni karo sida looga hortago maxaa mar walba in gacmaha la dhaqo markasta in ma aragtay maxay isku soo dhawaanin hoosta iska soo galin iyo wixii kale oo la mid ah marka arimaha ku saabsan gacmaha in la dhaqo anaga way noo fududaanaysaa aniga aaminsanahay sababtoo dad muslimaan ahay waa ina ugu yaraan ma aragtay 20 goor ama ka badan ugu yaraan 15 mar ama ka badan inaan maxay dhaqno gacmaheena maalintii sababtoo markii aan weesaysanayno 5 mar oo 5 mar amal cunto markii la cunaas qado quraac iyo casho iyo casariye iyo barqad wixii la cuno markaad cunin ka hor u dhaqaysid markaad cuntid kadib aad dhaqaysid musqusha markii la tago oo la dhaqaayo marar kale markastoo ama meel nadiifinaysa waxa aad taabatid hore laga dhaqaayo anaga way noo fududaanaysaa nadaafada waaba diinteena barkeeda samaha sida nabigeena kaleey salaatu salaam noo sheegay laakiin meesha dhibaato ka dhici doonto oo hadii ilaahayga awood leh uu naga qabanin ka dhici karto waxa waaye isku galgalka isku imaashaha tirada badan leh haddana maadaama ay ramadaan tahay taas oo dhibaato weyn sii keeni karto hadii ma aragtay aad looga taxadarin hadii aan ka naxin oo u naxariisanin dadkeena waayeelka caruurta yaryar dadka maxay tabarta daran leh caafimaad ahaan dadka ma aragtay isku ogeen cuduro ama Afrika joogan oo dhakhtar mar walba u tagin oo la soconin xaaladooda caafimaad marka aan walaalayaal waxaan ka codsan lahaa dadkiina ma aragtay is og oo meelaha tagtago oo ma aragtay ama xoog leh oo caafimaadka leh oo dhalinyarada fadlan isku daya inaad ehelkiina asxaabtiina ka naxdaan fadlan isku daya inaadan ma aragtay si oo hadayna jirin sababo weyn kugu sababeyn inaad u tagto qofkaas inaad isku daydid inaad intaad ka fogaan kartid ka fogaatin intii xaalad meel u dhaceyso sababtoo waxa laga yaabaa adiga waxaan inuu wax weyn ku keenin balse dadka tabarta yar leh sida dadka waayeelka dadka asmada qabo iyo dadka cudurada kala qaba sida sokorta dhiigkarka iyo wixii kale aad u dilan karaa marka anaka iskarab qabano is dhageysano waa muhiim waa ogahay qofka malagiisa galo dhimanayo balse ilaahay dadaaluna dhahay marka dadaalkii ka mid tahay inaan iswaanino oo isla wada dadaalno waa muhiim inaan ismaqalno dadka dhaqaatiirta iyo dadka aqoonta u leh khibrada dheeraadka u leh talooyinka ay nasiyaan waa inaan ma aragtay awooda saarno waa inaan dhageysano ilaahayna barino marka insha Allah ramadaanka bariyo noo bilaaban doona hadii ay awooda la idmo marka waxa muhiim ah kulligeen si inaan isku wada duceeyno in ilaahay naga qaado dhibaatadan si aan ma aragtay horumar iyo guul wada gaarno
mid kale aan rabay inaan aad isha ugu dhowro waxaa weeye ramadaanka badanaa dadka markii ramadaan la gaaro markaas waxay soo iibsadaan cunto dheeraad ah waqti badan oo dheeraad ah ku dhumiyaan inay cunto badan kariyaan maanta dhan jikada ku jiraan marka waxaa meesha ka dhumaya muhiimadii dhan oo muhiimadda ramadaanka waxaa weeye inaad dareentid micnaha ramadaanka baahida calooshaada nadiif ahaato habeenkii afurka markii la gaarno wax cun ma ahan inaa cuntaha cunin ku leeyahay balse waa inaa cuntid wax yaroo kooban oo nuxur leh oo maaragtay jirkaaga faa'iidooyin u keenayo fitamiino u keenaya maskaxdaada maxay ahayd wax ku ool ah naftaada u keenayo ma ahan wax saliidda laga badiyay oo tirada ka batay maanta inaa cuntid ma ahan maxay ahayd wax qarash dheeraad oo markii horeba 3 maqti ah cunaysa qarash kaaga bixi jiro cuntadaada ka badan inuu kugu baxo waa qalad cuntada wixii kugu bixi jiray waa inaa haaf ka dhigtid haafka kalena waa inaa qof miskiin oo baahan inaad ku afurisid saasaa kaaga fiican inta adiga ku dhumin lahayd waqti badan jikada adeeg tiro badan inaad soo gadid oo maxay ahayd waqti u weysid ayaa ilaahay ku caabudid oo ku cibaadaysatid sababtoo ah waqti wax yaroo caafimaad leh oo adaad karsatid adiga iyo caruurtaada iyo lamaanahaaga iyo wax kugu filan markaasna waxaa waqti u helaysaa inaad ilaahay diintiisa akhrisatid quraanka inaad salaad badan dukatid inaad duco badan samaysid maxay ahayd intii lacagtii iyo qarashkii oo tirada badnaane inta kalena aad siisid maskiin yaro awoodin in ma aragtay uu afurkiisa meel ka soo saarto ama faamil agoon ah ama wixii kaloo la mid ah way fududahay si loo helo qof la afuriyo marka waxaa aad rabaa inaan kala dardaarmo haddii eebaha wada la idmo in aan isku dayno inta cuni jirna kala barkeed inaan kala barkeed cunno barki kalena qof kaloo maskiina siino dareennana micnaha dhabta ah ee ramadaanka ah midda kaleeto oo ah in ma aragtay midda kale oo ah haddii aad rabtid oo kale qof walaalka ah ama waaridka ama asxaabtaada ah oo caadaysatay ama dhaqan ka dhigatay inaad ramadaankas isla afurtaan ama isku tagtaan balse ay suurtagaleynin sanadkan maadaama way suurtagalaysaa haddii aad isqasatid balse haddii aad isku dayaysid inaad intii tabartaadii awoodaada iyo aqligaaga aadan maxay ahayd badbaadisid ummadda waxaad samayn kartaa wixii aad siin jirtay oo kaleeto ama afur khatar hadaa samaysid oo kale inaad u samaysid qofka iga soo doon inaad dhahda albaabka u dhigtid ama adi albaabkooda u geysid oo kale qofkii inaad video kale wactantid oo video kale sheekeysatid si aan u yareeno maaragtay faafidda cudurkan insha Allah dad badan oo saboolo awoodin ayaa jiro maanta hadda adi xoog leedahay caafimaad leedahay ama maal haysatid dad waxaas oo dhan kasoo bixi karin ayaa jiro hadduu ku dhaco waxaan marka waa inaan isku naxno walaalayaal waa inaan iska danqano sidii nabigeena calayhi salaatu salaam noo sheegay waa in ma aragtay qof kasta foojignaado waa qof kasta intii waajibkiisa iyo intii asaga laga rabo waa in ma aragtay uu maxayto waxaan garabka dadka siiyo sida la socono hand sanitizer-ka Soomaaliya iyo wadamada Afrika aad ugu yar yihiin balse waxyaabo kale oo natural laga samaysan kartiin sida like cusba iyo liinta oo kaleeto haddii waxyaabo kale oo tiro badan hadda YouTube-ka gashin aad laga heli karo oo baartaan waxyaabo natural guriga idin yaala ka samaysan kartaan marka walaalayaal marwayna hadalkeen ku badiyo mar labaad mar saddexaad Ramadaan Kariim ilaahay dadkii ka faa'iideysta naga dhigo insha Allah ta'ala ilaahay idinkiis waa inoo mar dambe xiiso leh ku soo dhawaada mar labaad mar saddexaad mar walbaba channelka is anfac fadlan haddii aad maxay nagu cusub tahay subscribe samee haddii aad ka heshana like saar adigoo aad u mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inaa goor dambe oo xiiso leh insha allahu tacaala ilaa idinkiis assalaamu calaykum nabadgelyo